新闻异常不配合检查。哦。同样肯定相应一些，赶紧防疫一管肯定，请你熄火，不要检查，请不要检查，不要熄火，不要检查。好。不要熄火，下车不要检查。放这儿了。有点不要动，不要检查。不要检查，先上车。走，不要检查。marka waxaan talo ku siinayaa hadda meelaha inta badan laga cabsi qabo waa airportyada waxaan talo ku siinayaa marka hadiiba aad tagayso airport oo aad tahay anigoo kale hadda waa safraa hadiiba aad maaragtay qof tahay safraaya oo wadan tagaya bahashan waa u baahan tahay sankii afka kugu xirmaysaa dhibaato meelahan ama si adag ku qabanaysi maaha waxa lagu talagalay intaan inay ku fadhiisato sankaaga iyo afkaaga isku heene meelaha ka neefsato waa ku leedahay Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaantiin meel kasta adduunka joogtaan waa sii kay idin leh isku soo noqod wanaagsan oo waliba xiiso leh waxa la yaabaa inaad isdhaadaan ninkii maanta waxa ka qaldan maxay tahay baashaan soo xirtay ma afka laga soo feeray maxaa ku dhacayna sidaadana laga yaabaa baashaan difaaca nafsiga maray sheekada macnaha difaaca nafsi ee sheekada maraysaa haddii qurba ah ku nooshahay oo travel aad samaysid aad baxbaxdid oo wadamo kale aad tagtid oo kale anigoo kale hadda baashaan laaziman waa u baahan tahay maxaa yeelay taa ogtihiin baa cudurka la yidhaahdo coronavirus oo ka imaaday dhanka iyo maaragtay indhayarta wuxuu u baahay aad iyo aad weliba aniga hadda waddankaana ku noolahay waan sugayay oo maaragtay wararka iyo waxaas waa akhrinayay waa sugayay oo waxaan islaa ka cabsi qabaniyo ama laga sheegaa inuu soo gaaray shalay magaalo meeshaan ah oo aniga ii dhow oo 2 saac ii jirto oo Innsbruck la yiraahdo meeshii ayaaba 2 qof oo kamid laga helay lagu leeyahay waa isku umaaday waxay sheegeen marka dhinacan Talyaaniga ba qofkii aado inuu soo laabo karin macnaha hadii Talyaaniga aadid oo ku nooshahay aniga magaalada degan oo kale ama meesha shalay laga helay magaalada kale ii dhow Innsbruck oo kale qofkii degan ee baxa ee Talyaaniga gala ma soo laabanaya camal degneed in maaragtay xuduudka Talyaaniga la lahaayeen si ku meel gaar ah u xireen macnaha Talyaaniga sababta uu dhahayna waxay tahay Talyaaniga tiro badan laga sheegay Talyaaniga ayaa waxa laga sheegay tiro aad u fara badan in laga helay cudurkaas dad qaba Talyaaniga gudihiisa cudurkan dadkan indhayarta ku dhacay waa wax mar dhow soo ifbaxay oo run ahaantii aad iyo aadna meelo wadamo kale aad iyo aad ugu baahay Aasiyadan Yurub qaybaheeda kala duwan adiga waxaan ku dhahay Jarmalkana noo dhow xitaa tiro badan laga sheegay Allahu musta'aan dadkan marka indhayarta cudurkan ku dhacay run ahaantii ilaahay yaa wata laakiin runta la isku sheego oo tan bini aadinimo xagga la dhigo waxaa jirta ilaahay horta qof ma dulmiyo taas waxaa daliil kugu ah wala tulqu bi aydikum ila tahluka gacmihiina dhibaato isugu geysana ilaahay saas ku leeyahay idinka gacmihiina masiibi dhibaato ha isugu soo jeedina hadda Shiinaha waxa lagu leeyahay inta uusan cudurkan soo ifbixin waxay sameynayeen dadka muslimiinta ah inay bartaas u galeen dadka muslimka ah inay kaadidi ku celiyeen adi waxa maqli jirtay Soomaalihan wiil hebel ama gabar heblaayo oo Soomaaliya dhaqan celin loogu celiyay wiil hebel oo qurbaha joogay ayaa Soomaaliya dhaqan celin loo keenay dhaqan celinta si fiican u fahmaysaan qof intuu qurbaha ku soo halaabay dalkiisa loogu celinayo dib ee quraanka iyo la soo barayo maaragtay Shiinaha waxay bilaabeen in muslimnimada ay dadka ka dhaqan celiyaan macnaha dadka Shiinaha ku noolaa iyaga naftirkooda Shiinaha ahaa iyo dadyow kale ee muslimnimada maaragtay haystay ayay waxay ku sameeyeen inay intay meel ku xareeyeen ay uga dhaqan celinayaan diinta Islaamka diintii aan iska dhaqan celinaya islaam waa halaabi ala soo dhaqan celiyo meesha lagu xareenayo iyo waxaan kaloo maqlay in xitaa dadka la warshadeynayba dadka baaba weyn u geysteen ummadda islaamka dibna way ku hayeen isla markii cudurkaana soo ifbaxay waxaan xasuustaa hadda ka hor mar cudurka
la dhihi jiray Ebola dhankaasi Afrika laga sheegi jiray waxaa la yiri qurbahan dadka madmadow marka tariinka la saaran yahay oo kale qof madow haduu indhiso xariif madow haduu dhaho 5 kaba mu faaraxa la gashanay hadda dadka indha yarta ahay basaska iyo meelahaas markii lagu arko caadi loo kala goynaya baan idin ma sheegay hadda Jarmalka jiray weekendiga dal soo dhaafayay Munich magaalada lahaan joogay anagoo saan meel u fadhina ala wiilo dhalinyaro soo galeen waliba kuwa magaalada degan ee caadi u labisan indha yarta waxa ka daran kuwa boorsooyinka jiidayo kuwa bacd weyn laga qabo oo isleeyahay hadda soo galeen laba xarfaan oo boorso jiidaysa soo gashay anoo u jeedo xitaa rag cunto ay u dalban tahay tartiib waa la gooyay kuwa cuntada u dalbaneed xagga sare sii aadeen xagga ma ku sugeynaa saacadan laga bilaabo waxa iribaahi ani afgooy asxaabta kale oo xagga maaragtay oo reer Munshin ugu soo dhaweysay marka taga ahaan ana bilaaba abu tartiib inta u gooy balaayil isla wada qabo run ahaantii ilaahay naga haayo cudurkan cudur halistiisa wato waaye ilaahay maaragtay ha inaga haayo inta muslimana ilaahay ka haayo laakiinse tan bini'aadanimada inta noo dhig masiibooyinka waxyaabaha ku dhacaan waxa kamid ah in ummad islaam ah dhibaato loo geysto in ummad islaam ah lagu dhibaateeyo islaamnimadooda masiibooyin fara badan ay keentaa masiibooyin aad u fara badan ay keentaa marka waxaan tala ku siinayaa hadda meelaha inta badan laga cabsi qabo waa airportyada waxaan tala ku siinayaa marka hadiiba aad tagayso airport oo aad tahay anigoo kale hadda waa safraa hadiiba aad maaragtay qof tahay safraaya oo wadan tagaya bahashan waa u baahan tahay sankii afka kugu xirmaysaa dhibaato meelahan ama si adag ku qabanaysi maaha waxa lagu talagalay intaan inay ku fadhiisato sankaaga iyo afkaaga isku heene meelaha ka neefsato waa ku leedahay waxa ku noqonaysaa difaac ilaahay horta baaragtay nafteena difaaci kara balse saafatiga dadaalka wuu iska fiican yahay adiga dadaal airport aad iska xiro hadda ana magaaladaas laga sheegay ma digni balse waxba ima jirto 2 saac ay jirtaa been idin ma sheegay go'aan buu waxaan gaaray baan hadda magaalada u tagayo jimka hadda aadayo dukaanka hadda aadayo la bariyo xiransan ya balaa baxsan cudur baa qarxo dhibaatasan ay ugu soo degdegin waan ka xirtay camal aan taaganayno waa kana tartiibka inta ka soo baxsanay earphone min rabaniga wadata saacadaas laga bilaabano hey ayadoo kan ku xiran yahay naftirkiisa maaragtay waa ka asaasa u xiranay tartiibka dukaankaaga iska aaday gurigaaga darbiga aad corona ku soo gudbinayo moogti banaanka marka u bixaysid basaska daraacaysid tariimada daraacaysid war magaaladaada hal hadii laga soo sheego kateenato tartiibkaaga adi kanavara iyo Teresa daaxirti maxaa ugu dhacay marka ana hadda go'aanan gaaray by the way haduu ilaahay raali ka noqdo ilaahay dhamaanteena naga ilaaliyo wixii islaam ah ilaahay ka ilaaliyo idinkana dadaalku uu fiican yahay saafatigiina ku dadaala hadii magaaladiina aad ka maqashaan hal qof inuu qabo xitaa oo confirm ay tahay use this banaanka marka u bixaysid tan isticmaal marka shaqada aadaysid inta kula shaqeyso caafimaadkooda haduu okay yahay la garay balse inta u sii socotid tariimada raacaysid baasha iska xiraaday inta sirista naaftana kuma dhibayso waa loogu talagalay adoo caadi camal ah waay xogaha safetyna way tahay ilaahay safety ilaahay naftana ilaali karay xogahana difaac naftana waa iska tahay haduu ilaahay raali ka noqdaan isniintan ba safar ahay waxaan u soo socdaa Greega hadii aad tahay reer Greega uu soo socdaa yo boy King CK haduu ilaahay raali ka noqdo Greega hadda ka hor codsi ay iga imaaday in halka aan tago oo aan shuu ku soo qabto ay degan yihiin Soomaali fara badan oo run ahaantii CK family kamid ah oo aad iyo aad u fara badan waa codsiga labaad hadda ii imaado in CK family Greega joogo aan u imaado waqtina aan la qaato haduu ilaahay raali ka noqdo isniinta CK family Greega ku nool uu soo socdaa yo boy wiilkay uu soo socdaa every day wiilka aad daawatid ee ka qosliya he will be in your city Greega Athens haduu ilaahay raali ka noqdo King CK iyo
mondayda soo socota Greega ayuu imaan doonaa. Greega sababtan u aadayo idinka waa ogtiin. Wadan markay aadayo iskama aado dana u aadaa. sababtan u aadi doona waxay tahay codsi iga yimid halkaas inaan show ku qabto ayaan isniinta tagi doonaa. isniinta markii aan tago isla maalinta isniinta ayaan soo shaacin doonaa goortuu showga dhacayo iyo flyerka adresska iyo more information adiga hadduu ilaahay raali ka noqdo. balse isniinta waxaan imaan doonaa Atanis. halkaana waxaan ku qaban doonaa CK Family Show oo ugu qabanayo aan halkaa isugu arki doono. waxaa garabkayga ah my brother Nema, my brother One Night, my brother AJ. See you there Monday. Okay guys, videogan haddii uu kaa qosliyey kusoo bir CK Family. haddii aad hore ugu jirtay ood maalin kasta intaad qosashay intaad u socotaariya waa qoslay waa iska baxe kaalay taabo meesha guduudan ee subscribe ku qoran tahay si aad uga mid noqoto familka qosolka CK Family. waxaan noo balana videogan videoga xiga adoo caafimaad qabay anoo caafimaad qabay inaan isku soo noqono macnaha